الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. dhibaatada dhacday oo maanta iyo labadan biriba ka socotay magaalada madaxdii Puntland Garowe waxaan ka tacsiyeynayaa intii ku dhimatay. waxaan leeyahay ilaahay naxariista jannaha siiyo. sidoo kale waxaan leeyahay inta ku dhaawacantay ilaahay oo boogadhayo. dadka masaakiinta ah oo ama qaxa ama barakacana waxaan leeyahay ilaahay weynaha xasilooni iyo kalsooni ha siiyo. intaa kadib waxaan halkan ka soo jeedinayaa baaq nabadeed. waxaan leeyahay marka hore dowladda Puntland oo madaxweynuhu ugu horeeyo arrintan inay ka hadlaan xabadana ay joojiyaan. dowladda iyo mucaaradka ka soo horjeeda labaduba xabadda waa inay si shuruud la'aan ku joojiyaan. waa inay u turaan dadka masaakiinta ah oo shacabka ay ku dul dagaalamayaan. waxaan leeyahay xabadii xal ma noqoto. waynu aragnay khasaaradeeda dhibteeda waynu aragnay. Soomaaliya waxa halka gaarsiiyay oo 32 sano dawladnimadeedii muxuu ahay ku faakacaysa waxa weeye waa xabad iyo muxuu ahay dhibaato iyo wax aan runtii laga fiirsan. hawshan waxaan leeyahay waa laga baaqsan karay inaan xabadi dhicin. waa laga baaqsan karay inaan dadkaasi fowdo iyo muxuu ahay masiibo ayaan ka bilaamin magaalada madaxdii Puntland. waxa laga baaqsan karay wax kasta oo xasarad iyo dhibaato keeni kara. laakiin qadarta rabbi ciidina ma hor istaagi karo. waxa qornaa in intaasi ama dhibtaas ay dhacdo. waxaan leeyahay halka ay hadda taagan tahay hal lagu joojiyo. dowladana waxaan leeyahay waxaad u dhaarateen madaxweynuhu ugu horeeyo ra'iisul baarlamaanka labada gole dhammaanteed waxaad u dhaarateen inaad dadka shacabka ah oo muxuu ahay wadanka Puntland maamulkan ku dhaqan inaad u khidmaysaan inaad u shaqaysaan kab ilaahay uga baqa mas'uuliyadda iyo xilka idin saaran. waa inaad joojisaan wax allaaliyo wixii xasarad keeni kara. waxaan leeyahay baarlamaanka si gaar ah arrinka dhibaatada iyo xasarada keenay waa inay ka fiirsadaan oo ay sida ugu dhaqsiya badan arrinka loo istoob gareeyo. waa waxayna ka fiirsan. waxaan leeyahay arrinka sida ugu dhaqsiya badan inuu joojiyo. fursadna loo siiyo nimanka baarlamaanka oo xabadu hortooda ka dhacayso inay ka baxaan muxuu ahay meesha oo ay meelahay guryahoodii ay nabad ku tagaan. waa in fursad loo siiyaa. taas intaasan kaga gudbayaa. waxaan leeyahay hoggaanka dhaqanka isimada meel kasta ay joogaan arrinkani waad aragtaan meesha uu marayo. horey waxaanu uga hadlay garaad Cabdirasaaq garaad Soofe iyo garaad Jaamac garaad Ismaaciil oo waxay yiraahdeen hawshan annaga la wareegnay. Puntland dhaqankeedu ixtiraam iyo qadarin iyo isxurmayn ayuu ku dhisan yahay kuna dhisnaa. garaadada waan ismaqalnay qaybtood xalay. waxaan halkan aan leeyahay taladoodu talo fiican bay ahayd laakiin tanaad ka soo hormadhay. waxa weeye in sida ugu dhaqsiyaha badan isimadu la isugu yimaado. badbaadinta Puntlandna aan ninna muxuu ay uusan cid kale marti uga noqon. waa in sidii xal lagu heli lahaa wadankan jiritaankiisu wuxuu ku dhisnaa bacdallah isimada hoggaanka dhaqanka. wax badan waa run waa la gacan bidixeeyay. wax badan siyaasiyiintu way isku dayeen inay muxuu ahaay ay gacan bidixeeyaan laakiin marna ka tagi mayso inay hoggaanka dhaqanka iyo isimadu isu yimaadaan. waxaan leeyahay sida ugu dhaqsiyaha badan in isimadu isugu yimaadaan arrinkaana loo joojiyo. muxuu ahaayay ciddii tala ka geysan kadha hadday mas'uuliyiin hore tahay hadday siyaasiyiin tahay oo xal nabadeed keeni kadha oo dhanna waa u furan tahay iyo waxgaradka inta kaleba. waxaan leeyahay meel kasta aynu joogno nabadda ayaa ina deeqda. waxaad la socotaan waxaynu ku jirnaa bilihii xurmada lahaa ashurul xurmki waynu ku jirnaa. waxaynu ku jirnaa bishii dulxaj. waa mamnuuc waa xaaraan in dhiig xaq darro lagu daadiyo
dagaalku waa xaaraan waa reeban yahay waa bilihii ilaahay uu xarimay in la dagaalamo waxaan leeyahay hawshaas ilaahay uga baqa hal la joojiyo halka ay marayso hal lagu joojiyo xal iyo wada hadal iyo in faraha wax la isku tuso oo looga gudbo wax allaaliyo wixii taagan muxuu ahaayay wax wanaagsan oo ummadan iyo wadankanba maslaxad u noqon kardha insha Allah saasan soo jeedinaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin